Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Mayraja Channel to asxaabta familiga dhammaan. Maanta jadwal oo liiga soo dalbado dhowr mar ayaan jadwalkeena ayaan saxanaynaa. Jadwalka wixii maalinta aniga aan qabto ayaan jeclahay in oo hawsha sidaas loo fududeysto. Hadda waxaan sameeyay quraacda caruurta. Uguma talagalin quraacda caruurta inaa idin tuso sababtoo ah mar kale ayaan inshallah marka hadda waxaan sameysanayaa Herbalife tea-gan videoga YouTube-ka ayuu ku jiraa waa fiirsan kartiin inshallah waa shaahii la isku caateynayay asaga iyo cuntadiisa isku dheelitiran cunto ayuu wataa marka inshallah waa ka faa'iido doontiin waana ka heli doontiin shaagaas ayaa caba waan ku sii shaqeeyaa subaxdii kadib baabada ayaa iska furaa kadib furunkeena ayaa shaqadiis galeynaa maadaama ciid buskudkii iyo rootiga iyo wixii lagu sameynayay aad ayuu u wasakhoobay daawada aad ayay idin anfacaysaa furunka sidaan ayay u buufinaysaa inshallah waad ka faa'iidootiin kadib guriga ayaa jakamaa daawooyinka dhamaaday iyo wixii loo baahan yahay ayaan iska fiiriyaa si aan biro u qaldamin dirishadaha ayaa ku dhaqaa baashaan marka jadwalkeena sidaan ayuu noogu socdaa walaalayaal waad ka heli doontiin subaaladaha ayaa ku buufiyaa daawooyinka oo dhan sidaas ayaa u isticmaalaa kadib armaajooyinka ayaa iska masaxayaa maanta waa maalintii armaajooyinka waayo guriga uu armaajo badan yahay saa ogtihiin aba qof walba armaajo aad u badan ayuu leeyahay hadaa dhahda armaajaan tirtiraa guriga dhaqaa alaaba dhaqaa ilma cunto diyaarna waa daaleysaa laakiin waa wiigii waa 7 maalmood 5 maalmood jadwal u sameysa 2 maalmoodna iska naso ilmaha farxad oo la qaado 5 maalmood waxaa kamid ah maalinta talaadada oo maanta hadda ay tahay aniga armaajooyinka jikadoo dhan aan iska dhaqaa meel walbo ee caruurta taabtaano ayaa iska dhaqaa maalinta isniintana dhulka ayaa iska masaxaa maalinta arbacada haduu ilaahay naf nagu gaarsiiyo inshallah daaqadaha ayaa iska dhaqaa waayo guriga ayay kamid yihiin waxaas oo dhan hadda armaajadii maacuunta waa kasoo tagnay armaajada raashinka ayaa hadda mareynaa caanaha iyo sokorta iyo cuntada lagu xareynayay marka hadaa jadwalkaaga saas u wadatid gurigaada ku nadiif badnaana ilmahaagana bus iyo hergab wax walba ka dhamaana laakiin hadaa dhahdo maalin walba meel ayaa qabanaa ma kala gaaris hooshi jikadii waa hadda meeshii koro oo xaqiiqa bixinaysay furunkii ayaan usoo laabanay amba foornadii waad aragtaan sidii daawadii ugu dhigtay waxaan lagu daalin hore ayaa gacanta hadda u maris hore ka nadiif sameysaa waa u jeedin waxay u baahan tahay kaliya 2 mar oo kaliya in istiraasho la soo mariyo wasaqda waa u jeedin si ugu soo baxday ayadoo wiigi hal mar la dhaqaayo saan ugu soo baxdo wasaqda marka ma sha Allah walaalayaal waa ka faa'iideysi doontiin waana ka heli doontiin saan jeclahay sida hadda hawsha u soo wadatid hooyaa tahay marka waa xilin inaan nasataa nafta u raaxaysaa xilina aa shaqadaada aa u yeelataa nidaam saas ayay furunkii dhalo noogu noqdo nadiif qurux ma sha Allah tabarakallah marka hadii meel ay wasaq kaaga dhigaano daawada ku buufinaysa waa iskaga dhiganaysaa 3 daqiiqo kadib aad ka masixi kartaa saad jeceshahay marka maanta waa maalintii jikada inshallah jadwalka part in loo qabsado ayaa fiican waan ula socod doontiin waana arki doontiin maxaa ayado gabdho badan oo abaayaal oo caruur leh ayaa iga soo codsaday maadaama ay caruurtii shaqadii jadwalka sidaan ayaa loo sameystaa abaayaal marka waxaa arkay gabdho badan oo hal maalin hawsha ku daalayo oo dhahay maanta hawshii ahay waa daalay marka hadaa daashidna waa aragtay xanuun korko jirko dhan ayaa ku xanuunayo marka maalinba laakiin hadaa marba meel aad iska hagaajisid waad caafimaadaysaa hawshan waad la qabsanaysaa gurigana ku nadiif badnaana ilmahaagan jaanisa u helaysaa kula faraxdid marka furunkeena sidaas ayaa nadiif qurux looga soo dhigay meeshaas ayuu ka aala asagana marka wasaqooway marka furunka hooshii sidaas ayaa ku bignay kadib jikada wixii ku saarsaaran ayaa laga soo qaadayaa jikada mutuleenkeeda iyo wixii ay maanta dhan meesha saarnaa iskaga nadiifinaysaa asagana sidoo kale hana iska ilaabin inaa biyo badan cabtid oo ku shaqeysid waa dhidid ayaa ka baxayo dhidid caafimaad la ayaa ku soo galay waa biyaha cad caafimaad waa jirkeena uu yahay
marka maasha Allah tabaaraka Allah walaalo badan ayaa aad ila soo xiriiray waa ku faraxsanahay walaalayaal inta dhiman waa soo dhaweynaa waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay in walaalahay ay qalbigooda wix ku jiro ay la qaybsan karaan oo anigana sidoo kale wix qalbiga ku jiro aan la qaybsan karo marka sidaa ayaa meeshii u soo tirtiraneynaa jikadii maanta markaas jikada ugu baxdid marka wixii ku dhinaadaaba iska yaraanay soo maahan hadda waa subax ilaa iyo adiga 12 saac subaxda markaa soo kaco ilaa 3 saac wixii markaas programkeyga ayaa sidaan u raacdaa insha Allah jikada waxay kamid tahay nadaafada koowaad waa jikada aad iyo aad mar walba wasaq u noqonaysaa meesha baraysyada la gashto waa inaad iska nadiifisaa haddii aad iska nadiifin biri markaa guriga ka guurayso wasaqdiisa dadka soo degay way la yaabayaan kadib qaybtii kale ayaa noo dhiman alaabtii kofeega iyo shaahiga iyo qaybtii lagu karinayo waaye dhulkeeda waxeedoo dhan sidaan ayaa iskaga soo masaxeynaa insha Allah saas baraysyada inaa mar walba sidaas u nadiifisid ayaa fiican waayo barayska aad wasaq gacanta mar walba ay ku dhagay kadibna mashiinkii kofeega ayaa iska tirtireynaa asagana sidoo kale naftii iyo nolosha ayuu ka mid yahay gurigaada wixii yaal ayuu ka mid yahay kadibna tarmuuskii yaraa shaaha lagu karinayo iyo biyaha kuleel kastarkii caruurta lagu karinayo kadib kana asagana nadaafada ayuu ka mid yahay waa daawooyinka alaabta lagu dhaqaayo iyo shukumaankiisa iyo isbuunyadiisa bes hooshi sidaas ayayba ku dhamaatay hool maba taalo markaas waxaa iska tirtireynaa bahalka qaandooyinka lagu rito sidoo kale qaandooyinka mar walba ayaa la dhaqaa waa la iska suraa waa wiigi hal mar inaad tirtirtid iska nadiifisid si ayna wax wasaq iyo wax boor ayna ugu dhicin waayo bisha ku jirno waa summer hadda qaboobihi ayaa mar dhow bilaabanaya kuleelkii aad ayaa bus wax walba ugu dhacaysaa busta kadibna bahalka mindiyada aan suranayna awlaaxiina mindiyada waa mindiyada hal amba laba laga yaabaa inaad ka isticmaashid inta kale waa inaad iska tirtirtaa kadib bahalka xawaajiyada noogu jireen asagana wuu u baahan yahay nadaafada waayo mar walba hawsha buubsiinaysa gacantaada wasaq ayaa kusoo qabanaysaa haddaa sidaan u samayso mar walba nadiif ayuu ku ahaanayaa gurigaada insha Allah waxaa jeclaa inaad ka faa'iidaysateen aana ka heli doontiino hadduu ku cajibiyey like saar videogan aad iyo aad ugu heshay hadduu subscribe ku ahayn subscribe dhaho insha Allah waxyaabo badan oo caafimaad la ayaa idiin soo wadnaa waxyaabo badan oo aad ka faa'iidi doontiino hawsheena sidaan ayay maanta noogu dhamaatay maasha Allah tabaarkallah waxaa rajeynayaa in video kale dib ugu kulmi doono waxaa aad iyo aad u soo dhaweynaa aad iyo aad ugu mahadcelinaa walaalahay isoo wacay la soo xiriiray waa ku mahadsantihiin hadaladiina wanaagsan iyo comment-kiina insha Allah waan idin soo dhaweynaa soo dhawaada walaalayaal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu